بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم waxaan kaliibkan kaga hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo hadii Soomaalidu ay dawlad noqon waayaan oo sida ay yihiin ay si ahaadaan xalkooda xagee ku dambeyn doonaa walaalayaal taas waa mustaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og haddana bini aadamka Ilaahay aqoon buu siiyay waxa dhacaya ay kaga qiyaas qaataan ama xaaladda ay ku sugan yihiin iyo xaaladda ay soo mareen mustaqbalka marka wax iimaan doona walaalayaal annagu sida aan ahdaanan iska bedelin ka soo rayn mayno waa ka sii liidanaynaa dalkan iyo dadkan waxa laga yaabaa sida haddaba aan aragno oo ay banaanka u taalo wax aan isu sheegayna aysan ahayn in taladeenu ay gacanteena ka sii baxdo dalka iyo dadka iyo ummaduna ay markaa gacan shisheeye ay galaan markaasna ummadihii duloobay oo taariikhda soo maray oo dawladnimadoodii iyo diintoodii iyo qiyamkoodii lagala wareegay meesha ay marayna annagoo haddaan xataa badbaadno oo duulaan shisheeye iyo gacmo shisheeye ka badbaadno annagoo qabaa'illa ah oo iska nool ayaan iska noolaanayna oo qabiilba qabiilka kale ku dhagan yahay ila qabyaalada iyo qabiilka afkaarta qabyaalada sida ay laakiin waxaan Ilaahay ka rajeeyaa inaysan dhicin inaan dawlad wanaagsan helno shacabkuna shacab tacliin iyo diin barta ay noqdaan diintooda fahma Ilaahay rag u soo saarayaan Ilaahay ka rajeynayaa oo xaaladda aan ku sugannahay marka aan ka sii wanaagsanaan oo ka liidan wadamada carabta ama dalkan ummadan carabta la yiraahdo hadaan tusaale u soo qaato marbay adduunka ka talinayeen caalamka islaamka intuu gaaro dhan carabba madax ka ahayd haddana maanta waad aragteen meesha xalkoodu marayo dawladnimada islaamka Ilaahay siiyay ayay ka tageen markay ka tageen xukunkii dawladnimada gacantooda ayuu ka baxay waxa la wareegay markiiba dadka la yiraahdo ajamiga oo carabta ahayn ayuu xukunka u gacan galay dawladda Cabbaasiyiinta oo joogta ayaa waxa ka hoos samaysmay dawlado yar yar sida Saljuuqiyiinti Faadimiyiinti Ayyuubiyiinti waxaas oo yar yar mamaaligti dawlad Cabbaasiyo ya kor magaca khilaafada haysatay laakiin dawlado yar yar oo waxay ahayd ajamiya ay ka taliyaan carab xukunku gacanta waa ka wareegay dawladda Uthmaaniyiinta ama khilaaf al-Uthmaaniya ugu dambeeyay oo Turkiga ahayd oo 1924 Kamal Atatürk uu baabiyay carab ma ahayn ingiriisku carab wuxuu ku yiri la dagaalama nimankan Turkiga oo gumaysanaya dhulkan Shaam ilaa dhulkan oo adika xukumaya ilaa Afrika iyagiiba dib loo gumaystay marka Faransiis Ingiriis ayaa kala gumaystay Ingiriis baa u badnaaday walaalayaal ummaduhu markay dawladnimo waayaan dhaqan ahaan iyo dad ahaan way isbedelaan waxa ka hadlay inay arintu sidaa tahay dad badan oo falaasifo iyo mufakkiriina oo qaar ay muslimiin yihiin qaar aysan muslimiin ahayn dadka muslimiinta ah ee ka hadlay waxa uu caansan oo aan rabaa inaan hadalkiisa ku kaaftoomo maadaama waqtigu yar yahay ibn Khaldun ninka la dhigi jiray oo cilmul ijtimaac la yiraahdo ama sociology-ga ninka asaasay oo 600 sano ka hor dhintay wadanka Masar ku dhintay oo reer Andalus ahaa oo dalka Spain ka yimid ninka ayaa wuxuu yiri الشعوب المقهورة سوء أخلاقها وهذا العجيبة شعوب تدولد الموايي ومامل وايي وإسكنوا العادي دقن كوذا أخلاق ذا أياب حماة أيول ويس بدشان وحو كلو يري إن الإنسان إذا ضال به تهميش بني آدم كديد تهميش كدولد الآنت يمام الآني أي كل يراته إنسان كنوع عاسى يصبح وحو هذا كالبهيمة حيوان وكله لا يهمه سوى الأكل والشرب والغريزة waxa kaliya uu ku fikiraa waxay noqotaa ama hankiisu wax kale ma noqdaan iyo hamigiisu wuxuu cuno wuxuu cabo iyo meel uu shahwada ku guto inta uu ka fikiraya waa khatar walaalayaal haddii tusaale u soo qaato reer banu Israa'iil Fircoon ba ay gacantiisa ku jireen oo duleystay iyagoo markaa dulliga ugu dambeeyay la dhadhansiiyay ay aqbaleen oo inta loo tago inuu marka dhashaan gacantoodii ku soo dhiibaan hortooda lagu gowraco wiilashooda ayaa Ilaahay Muuse ka soo saaray Nabi Muuse Ilaahay wuxuu doonay qasru Fircoon inuu marka ku koro
waana ogtii bini aadanka guri madaxtooye iyo boqor qof ku koray iyo guri caadiya isku han maaha isku ujeeda ma waaba ummadda meesha looga talinayay muuse markaa karti iyo firfircooni ayuu ku koray markaa iyo dadnimo ilaahay subxaanahu wa tacaala risaalo samaawiya ayuu ilaahay ku xoojiyey shanta ulul casmi ayuuna ka mid ahaa kaliimullah ilaahay ayaana la hadlay markaa iyadoo intaasoo dhan jiraan ayaa korriinshadiisina waxaa qayb libaax ka qaadatay inuu cis iyo sharaf ku koro oo markaa fircoonka laga baqayo wuxuu yaaba uu arkay markaa hortiisu intuu istaagay ayuu wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil waad gumaysataaye fasax ayuu yidhi marka walaalayaal haddaad aragto dadkaada oo dulaysan ama qabiilkaaga ama qaraabadaada oo dulaysan ee aad ka hadasho Soomaali dadka qaar aan aqoon lahayn bay wax u fahmayaan inay qabyaalad tahay ama dad ku fahmay ma qabyaalad ummadaada xil baa ka saaran marka adigu aad qoyskaaga walaalaha qaraabada wax ka qabato baad Soomaalina wax ka qaban kartaa nin baa ka cararaya dadkiisii xigtadiisii baabacsan markaas Soomaali weyn u cararaya Soomaali weyn waxa ka horeeya qaraabadaada abtiga adeerka ehelkaaga markaad islaaxiso ummadda kale u gudub iyagana waqti gali oo xaq bay kugu leeyihiin laakiin waxa la rabaa waxa aad qaban kartid inaad qabato muuse reer banu israa'iil kunnimadii buu ka saaray an arsil macana bani israa'iil waxa reer banu israa'iil inaad dulinimada ka qaada ayuu yiri quraanku in badan buu ka hadlay muuse iyo fircoon dagaalka dhex maray reer banu israa'iil heer wixii gaareen ay yiraahdeen inta aad u dulaysan bay ahaayeen qaaluu uudina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana muuse intaada noo imaana dhibku waan ku jirnay markaad noo timidna dhibka kama bixin markaas muuse wuxuu yiri qaala asa rabbukum an yuhlika aduwakum rabbigiin wuxuu mudan yahay oo la arka cadawgiin inuu halaago ويستخلفكم في الأرض دول كان مامل كيس كعنت إيدين قليو فينظر كيف تعملون إلهين مركا أو فيريو سيدات مركا وقبطان وضع أمها مشان سلام مركي فرعون لها لاقي تضبعات مكسو ساري تضبعات كي ويمد يقول دي بعابدية وكو يلهدين أديك ربك أتقى مركي اللي بيت القدس قلع دقال لما حرية أديك ربك أتقى فقاتل إنها هنا قاعدون أديك ربك أتقى لما هل كان فردين هنا ماذا حدي markuu muuse dhinac uu ka maro waayay oo jid iyo jaha ka waayay ay maqli waayeen ilaahay 40 sano oo tiiha ayuu ku soo riday xilliga ayaa muuse dhintay tiihi iyo wareerka 40 sano ay ku jireen waxa ku baaba'ay in alan inti gunnimada soo aragtay fircoon oo duliga ahayd oo fircoon duleystay ayaa ku dhimatay jiil cusub oo yaryar oo dhalinyaro ah oo curdin ah ayaa u soo baxay nin la yiraahdo Yuusha ibn Nuun oo nabi ahaana wiilkii yaraa ee muuse buraashada biyaha u waday markuu khadir muuse uu cilmi doonanayay muuse wala hal ataabicuka ala an tuallimana mimma ullimta rushda wiilkii la socday ayaa markaa hogaamiyey baytul qudus isaga galay ilaahay nasri buu siiyey xukunku gacantooda galiyay muddo dheer bay joogeen waa taariikh dheer ummadu marka mulkiga dawladnimada haddii aad marka si cizi ah iyo sharaf ah aad ku raadiso waad helaysaa marka walaalayaal dawladnimo la'aanteed ma noolaanayno mana noolaa doono haddii aan noolaana waxaan noolaanaynaa anagoo qabaa'illa ah adduunkuna sidii waagi hore aan u nooleen looma noolaa karo waa adduunku wuxuu noqday hal tuulo oo waad aragteen marka waxaana kaga bixi karnaa waxay tahay inaan diinteenna islaamka ah dib ugu laabano ilaahayna ku kalsoonaano xukunkan aan isku dilaynin aan isugu tanasulno ninka marka xukunka qabtana lala shaqeeyo isaguna markii ummadda xukunka u dhiibatay uu gacantooda ku soo celiyo anigu inta ayaan marka darsigay ku soo koobaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa dhibkan dilooday iyo dawlad la'aantan iyo mugdigan noo muuqda ilaahay inuu naga badbaadiyo haddaan ummaddaanu dad u kicin caqli leh oo maskaxda iyo maanka ka shaqaysiiya u malayn maayo Allah subxaanahu wa ta'ala malaa'ignu samada nooga soo dirayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibkana naga saaro wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh